هل dhacdo oo yeelatay laba falcelin oo kala duwan Caaisha waxay gashay kaalinta koowaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayayna u mahadcelisay sheegtayna fadligiisa inay ku gashay kaalinta koowaad maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaa kaalinta koowaad u galo ummadda Soomaaliyeed haddaan aniga gala micnaheedu maahan dadka kale inaa wax dheerahay Ilaahay qadarkiisa iyo fadligiisa ku galay mana filnaynin runtii inaa gali doono laakiin Ilaahay u mahadcelinaya isla dhacdadaas Jubba wuxuu ugu faa'iideystay inuu ku suurad xumeeyo diinta Islaamka waliba uu ku diido axaadiista Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam taas oo aan macquul ahayn marka loo eego aqliga wahabiyada oo ay lagu yiraahdeen waxa jira wax la yiraahdo naaqisatul aqli wa diin bal uu ku tilmaamo inay aqliga ka soo horjeedaan aqligii kaalinta koowaad gashayna waxay u mahadcelisay Ilaahay aqligaas siiyay fadligiisana ay ku gashay kaalinta koowaad isaguna wuxuu si bareera u diiday xadiiskii mid Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam kaliya hal maaha laba xadiis ayuu si bareera u diiday haddaba meeshan waxay inooga soo baxaysaa gabdhaha inay noqdeen aalad la adeegsado waliba iyagoo aan iska warheynin ee dadka lagu adeegaan ninkan inuu diinta burburiyo axaadiis Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ku jeejeeso oo waliba Ilaahayga ee Caaisha u mahadcelisay uu ku jeejeeso waxa ku taageeray gabdha Soomaaliyeed haddaba ma aragtaa aqliga gabdhaheena sida loogu ciyaarayo ma aragtaa sida cadfadooda looga faa'iideysanayo ma aragtaa danta laga leeyahay inay tahay in diinta loo soo maro mana aragtaa ninkan diin la'aantiisa iyo jahligiisu intuu leeyahay waxa ka codsanaya muuqaalka inaad asxaabtaada gaarsiiso wassalaam